kadib markii uu ka soo baxay cisbitaalka dhakhaatiirtiisuna ay u bandhigeen inuusan sii noolaanaynin muddo 7 ayaa waxaa si kidisaa ninka hore uga tirsanaan jiray sirdoonka dalka Britain oo hadda da'diisu marayso 8 sano kana mid ahaa dadkii gacanyaraha ahaa amiiradii Diana waxa uu soo bandhigay warbixino xiriir ah oo kaga hadlayo geeridii amiiradaasi sarkaalkan hore uga tirsanaa sirdoonka Britain Master Hompican waxa uu sheegay inuu ahaa dilaa ay ku shaqeeyaan sirdoonka dalka Britain isagoo ay gacantiisa ku baxeen ilaa 23 qof oo ay u wakiisheen hay'adda sirdoonka Britain intii u dhaxaysay sanadihii 73 ilaa 99 ee qarnigii hore ee ina dhaafay waxaana uu sheegay in dilka amiira uu ka mid ahaa howlgallada dil ee uu fuliyay mareegta warbaahineed ee Euro News Wire oo uu waramay waxa uu sheegay inuu u shaqeeyay sirdoonka dalka Britain muddo 38 sanadood loona wakiishay dilka dad fara badan oo loo arkay inay khatar ku yihiin amniga gudaha ee boqortooyada Ingiriiska sarkaalkan hore waxa uu leeyahay amiiradii Diana waxay ka mid ahayd dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay falalkii aan fuliyay waxa uu sheegay inay ahayd gabadh u qalantay inay sii noolaato marka loo eego furfurnaanteedii iyo quruxdeedii laakiin waxay ahayd buuri gabadhii kaliya ahayd ee ku jirtay dadkii faraha badnaa ee gacanteeda ku baxay waxaana ahayd qofkii kaliya ahaa ee ka tirsan qoyska reer boqor sidoo kale Diana dilkeedii waxa uu ku sheegay inuu ahaa amarkii kaliya ahaa ee ka yimi dhinaca qoyska reer boqor si looga takhaluso amiiradaasi ninkan oo da'diisu marayso 8 sano waxa uu sheegay in dareeno badan oo iska horimanayay ay ku kaleeyeen dilkii Diana laakiin ugu dambeynta loo arkayay haweeney khatar ku ah carshiga boqortooyada Britain waxa uu sheegay in Diana lagu maagay iyadoo haysay xog iyo sira fara badan oo qoyska reer boqor khuseeya isla markaana ay dhanka kale colaad u haysay qoyskaasi awoodna ay u lahayd inay xilli kasta si cad u soo bandhigto macluumaadka qarsoodiga ay haysay waxa uu sheegay in sarkaalkii isaga ku amray in uu dilka amiiradda qorsheeya oo u sheegay in amarka lagu dilay uu ka yimi dhinaca Amiir Philip oo u sheegay in dilka loo qorsheeyo qaab u eg shilgaari way uga adkayd buuri inaan dilo qof haweenaya anigu aan hore wax haween oo dilin sidoo kalena waxa uga adkayd ayuu yiri inaan dilo amiiradda laakiin arinta ugu dambeynta aan qaadanaya waxa ahayd buuri awaamirta ciidan oo lama dhaafaana dilka ama falkaana waxaan u sameeyay buuri boqortooyada iyo wadanka darti maslaxadda boqortooyada iyo wadanka dartood kaalku waxa uu sheegay in uu hadda sugayo in la qabto oo la xiro iyadoo la raacayo waxyaabaha uu qartay laakiin taasi aanay ahayn mid uu aad uga fikirayo oo uu danaynayo maadaama muddo 7 ay suuragal tahay inay noloshiisa gaadhay waxa uu sheegay inay adkayd in isaga kadib la helo wax xog oo ku saabsan dilkii amiiradaasi maadaama raggii hawsha loo waday ee lagu kalsoonaa dhammaantood ay isaga ka horeeyeen oo wada dhinteen taasina ay tahay sababta ku kaliftay xilligan inuu isagu soo bandhigo mid ka mid ah qasooyinkii iyo howlgalladii dhanka sirdoonka ee ay fulisay hay'adda sirdoonka ee dalka Britain